قلب ونكسن مقعيق وحال لها خذن عبدي وحان وشقيا حفيز كحير إلى ليها دقمة حنبن قيبتا أو عاوسة إن قفك دبنها إن وحا عاونا presentation كان إلى سمينايا ورسمك الليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقي وحا ورسمك الليل لوير باناهاي قرينكا وحان شقيا cases ka felony cases ka waxaan shaqeeya felony-ga xanti iyo daroogada. Next slide, please. Waa maxay shaqada xafiiska xeer ilaalinta magaalada iyo degmada? Sidee iyo ku kala duwan yihiin? Degmada Hennepin waxaa waay 45 magaalada, laakiin xeer ilaalinta magaalada bis waxaa waay Minneapolis-ba. Maxkamadda fal-dambiyeedka waxaa waay dambiyada culus, dadkii 18 jir iyo ka weyn, iyo dhammaan dacwada dhalinyarada. Dambiyadka dadkii aruurka caadi maahan, laakiin haddii loo hayo dacwada aruur waxaa waay waa aruur baa dilay qof ama dadka, laakiin caadi maahan stateka Minnesota iyo United Stateska oo dhan. Degmada Hennepin bis waxaa waay caseska felony. Af Ingiriiska waxaa waay felony. Felony waxaa waay caseska bis 1 sanad iyo maalin ka badan xabsi. Intaas waay sharciga stateka Minnesota caseska felony. Madaniga waxaa waay af Ingiriis civil. Waxa ay matalan waxda taageerada dhaqaale iyo aruurta. Waxa ay matalan degmada Hennepin dacwada madaniga ah. Adiga dadka waxweyn waxaa waay dadka loo oqsanaado in ay madaxa qajaran yihiin, taas waxaa waay af Ingiriis civil commitment. Civil commitment maahan dambidka dadkii waaweyn iyo dhalinyarada, waxaa waay civil commitment dadkii haddii madaxooda haysta iyo caseska felony waay ma la geenaya xabiska caadi sidii hosbitaalka xabiska waay. Ku-xiga waxaa waay xeer ilaalinta magaalada, laakiin xeer ilaalinta magaalada waxaa waay sidii oo kale Minneapoliska bis. Taas waxaa waay 3 nooc oo cases. Af Ingiriiska waxaa waay petty misdemeanor, misdemeanor iyo gross misdemeanor. Somali waxaa waay xadgudubyo dambiyada hoos iyo dambiyadka dhex. Petty misdemeanor waxaa waay caseska tigidii qaadiga saas oo kale wax yar waay, caseska wax weyn maaha. Dambiyada hoos waxaa waay misdemeanor iyo dambiyadka dhex waxaa waay gross misdemeanor. Caseska stateka oo dhan Minnesota misdemeanor iyo gross misdemeanor 1 sanad ka hooseeyo xabiska waay. Maahan sidii caseska felony 1 sanad iyo maalin caseska taas oo ka weyn xabsiga. Madaniga waxa ay matalan magaalada Minneapoliska damanka dacwada madaniga ah. Next slide, please. Wala Garcia idaanka camalka waxaa dhacay maxaa ku xiga. Warbixinta loo soo gudbiyay waxaa loo sameeyay police numberka iyo warqadka poliiska waxaa waay police report and the corresponding numberka poliiska. Udadaxa bulshada iyo laga yaabo inuu soo dhex galo. Baritaanka dacwada iyo ciidaanka ama dugsiga iskuulka ayaa bilowda haddii uu quseeyo sharciga Title 9 waxaa waay sharciga Title 9. Baritaanka waxa uu dhici karaa isla mar ahaanta. Marka uu dhammaado baritaanka ciidaanka nabadgelyada waxa uu suuragal ah in dacwada loo xiriiriyo xafiiska xeer ilaalinta. Dacwada qaarkood lama gudbiyo xeer ilaalinta. Tusaale, haddii booliiska basiya warqad iyo numberka go'aanka anaaska leh maahan booliiska. Xoogad bada weyn waxaa waay qof Soomaali anaa lawyerka. Ninka booliiska iyo naaga booliiska waxay arkayaan nin Soomaali oo gar iyo magaceedii waxaa waay 3 nooc oo khatar, laakiin
laakiin ninka booliiska wuxuu arkaya go-aanka anaaska leh keiska. Intaas wax weyn waa. Next slide, please. dacwada loo gudbiyo xafiiska degmada Hennepin maxaa ka xiga? Intaas waxaa waay caseska Hennepin County bis. waxaa loo xilsaaraa xeer ilaalinta waxa uu shaqeeyaan kooxo takhasus gaar ah leh. xadgudubka galmudka waxa uu xilsaaran koox gaar ah oo tirsan xafiiska Hennepin County qaybta fal dambiyeed rabshada. ku xiga xeer ilaalintu waxa ay aqriyaan warbixinta booliiska waxa waay nabarka booliiska iyo warqadka booliiska. ciidanka nabadgelyada waxa wajiib ku nahay soo gudbeen ciidanka taageeraysa qodobka dambiyada lagu soo qaaqay eedeysanaha. xeer ilaalintu waxa eegta qodobka sharciga ee i khuseeya. mararka qaarkood xeer ilaalintu waxa ay la tashata qareenta kale ee kooxda ka tirsan dambi bara booliiska qaranka horjoogaha. xeer ilaalinta ee go-aanka ka haray waxa waay 3 nooc. go-aanka waxa waay 3 doorasho bis in ay dib u degaan lama gudbin dacwada gudbiyey. intaas bis go-aanka anaos kale garinka lawyerka iyo dad oo kale oo jooga xafiiska aniga. go-aankaas ma askale booliiska. go-aanka bis ba askale lawyerka iyo kadib warqadkii garinka waxaa arkaya maxkamo. intaas bis waaya siyaasadda Mareykanka iyo stateka Minnesota. go-aanka oo la arkaya lawyerka iyo maxkamo. police baa siinaya warqadka iyo numberka. Next slide, please. Udadaysha dibanaha. Udade ayaa loo xilsaara dacwada marka go-aan laga garo. waa sidii booska hodan. Udadahe waxaa xireeya dibanaha iyo xeer ilaalinta. Udadahe ayaa la socodsiiya dibanaha xaaladda dacwada iyo go-aanka laga garay in lagu oogay eedeysanaha. udadaha ayaa la socodsiiya maxkamadda la xiriira OFP iyo HRO. OFP, HRO af Ingiriiska waxaa waay Order for Protection iyo Harassment Restraining Order dadkii balahaysa. iyo codsiga CVRB. af Ingiriiska waxaa waay Crime Victims Reparation Board. guddiga madaxweynaha dibanayaasha fal dambiyeedka CVRB Crime Victims Reparations Board rather iyo waxa ay bixiyaan qarashka caafimaadka iyo la talinta. Next slide, please. dacwada lama gudbin. xeer ilaalinta iyo weydiista dambi barayaasha in ay raadiyaan macluumaad dheeraad ah. wareystan dadkii kale oo qof jooga ahaa iyo ku xiga raadiyaan warbixinta shaybaarka. saan oo kale waxaa qaata bil oo badan haddii raadiyaan warbixinta shaybaarka iyo sanadka, laakiin mala socodsiiya ka badan 3 sanad. taas waxaa waay go-aanka iyo sharciga Minnesota. haddii raadiyaan warbixinta sharciga bil oo kale qaadan karta, laakiin 3 sanad oo ka badan mala qaadan karta. laakiin waa la arkayaa sharciga Minneapolis waa la qortay waxaa waay af Ingiriiska statutory requirement iyo statutes of limitation. Next slide, please. xuquuqda dibxana dacwada oo la diido. udoodaha ee gaarsiiya go-aanka.
Dibanuhu waxa uu codsan karaa inuu la kulmo xeer ilaalinta si uu uga hadlo iyo go'aanka dacwadda. Waxa waaye rumayn batartamaya caddayn. Haddii ma taalo caddayn, khalaas waaye. Nidaamka oo dhan Maraykanka waaye, caddayn bis waaye. Rumayn wax yar waaye. Sidii buuq bis waaye. Maraykanka iyo Minnesota sharciga waaye, caddaynka bis waaye. Waxa waaye Maraykanka standardka Maraykanka iyo Minnesota caddaynka waaye. Taas bis waaye. Haddii aad ulowda wax kasta oo kale, xusuus taas Maraykanka iyo Minnesota caddaynka waaye bis. Standardka waxa waaye believe and prove. Waxa waaye caddaynka ka badan rumaynka, proof beyond a reasonable doubt. Waxa waaye sharciga Minnesota iyo Maraykanka oo dhan. Taas wanaagsan waaye. Waa la arkaya qariinka, lawyerka iyo maxkamada. Police ma la tartamaya caddaynka. Waxa waaye caddaynka bis sharciga. Okay, next slide, please. qofka dhibanaha markii dacwadiisa qof lagu soo oogo xaquuq buu leeyahay. xaquuqdaas waxa ay ka mid ah in la wargeliyo qofkii dhibanaha ahaa oo loo sheego dembiga nooca uu yahay, iyo in uu qofkii ka qayb qaadan karo inuu maxkamadda tegi karo, in oo uu dhageysan karo waxa ka dhaca maxkamadda, sida qofka shuruudaha la siiyey, in uu ra'yi ka dhiiban karo sida ay dacwada u dhammaato, in lagula socodsiiyo faahfaahinta oo dacwada iyo heshiis haddii la gaaro, inaad ra'yi ka dhiiban kartid heshiiskaas, iyo haddii aad ogoleyn heshiiskaas in aad u sheegi kartid qareenka xeer ilaaliyaha in aad heshiiskaas kasoo horjeedid. waxaad qofka u doodaha dhibanaha kula socodsiinaya in aad xaq u leedahay codsi magdhow oo qofkii dembiga kaa galay aad ka codsan kartid maxkamadda inay ku xukunto in uu qarash hadduu kaa baxay qofkaas lagu xukumo inuu ku soo celiyo, in aad codsato bixitaanka oo qarashka oo hay-adda la dhaho CBRB. mid slideka kaloo soo socdaa niigu sheegi doonaa. in aad hadal ka jeediso xukunka maxkamadda, in lagu siiyo faahfaahin ku saabsan xukunka, xuquuqda kale oo aad leedahay kadib marka eedeysanaha lagu helo dembiga. intaasoo dhan waxaa kuu sharaxaya oo ku fahamsiinaya qofka u doodahaaga ah oo kula shaqeynaya inta ay keiskaaga socoto. Next slide, please. qofka dhibanaha wuxuu xaq u leeyahay in uu codsado badbaadin, in uu booliiska ama maxkamadda badbaadin ka codsado, taas oo ay tahay in ay ka qariyaan dadweynaha aqoonsiga dhibanaha oo dembiga soo sheegay. waxay ka codsan karaan booliiska ama sharafka in ay ka qariyaan dadweynaha ciwaanka shaqada, qofka taleefankiisa, taariikhda dhalashadiisa, iyo iyo meesha uu degan yahay. waxay kaloo codsan karaan in meel gaar ah lagu fariisiyo maalinta oo maxkamadda, haddii uu qofka go-aansada inuu maxkamadda imaado ama maxkamadda daawado, wuxuu ka codsan karaa in meel gaar ah la fadhiisiyo. wuxuu codsan karaa qofka in laga caawiyo shaqo hadduu ka shaqeynayo oo shaqadiisa fasax uga baahan yahay, qofka u doodaha ka caawin kara oo shaqadaada u sheegi kara in maxkamad lagaa baahan yahay. haddii lagu baahan yahay in aad markhaati furtid, qofkaasaa warqad ku qori kara ama shaqadaada kaala hadli kara haddii aad u baahan tahay in aad shaqada maalintaas fasax ka qaadatid. waxaad kaloo codsan kartaa
in laga ilaaliyo faragelinta markhaatiga sidii haddii uu qofkii eedeysanaha ahaa uu ku hanjabo ama oo qofkaaseeto wax dhibaato ah ku gaarsiiyo ama uu ku hanjabo waxaad wacdaa 911 wac askarta u sheeg iyo qofka uu doodaha oo victim advocate-ka loo yaqaano oo xafiiska ka shaqeeya aad usoo sheegaysaa in uu qofkii eedeysanihii ku hanjabayo ama dhibaato ku geynayaan. Next slide, please. xuquuqda dhibanaha markii lasii wado waxaa ku jira gargaarka maaliyeed kaas labuu u baxaa mid oo ah bixinta qarashka oo hay-adda loo yaqaano CBRB ee bixiyaan midna waa magdhowga oo qofka dembiga kaa galay lagu maxkamadda ee ku dhahdo bixi marka qofka dhibanaha bixinta qarashka oo hay-adda CBRB-ga la dhaho waxay ka caawiyaan faldambiyeedka rabshada weheliyaan waxay codsan karaan gargaar maaliyeed haddii uu dhaawac jirka ama dareenka ama dhimasho ay ka dhalato faldambiyeedka midka oo magdhowga ah oo loo yaqaano restitution kaas qofka dhibanaha wuxuu ka dalban karaa in ay maxkamadda ka codsadaan in loo soo celiyo wixii qarash ahaa oo ku baxay qofka ku baxay oo dembiga uu soo gaarsiiyey. Next slide. hay-adda oo loo yaqaano CBRB waa guddiga bixinta qarashka dhibanayaasha oo faldambiyeedka waxay hayaan dembiyaasha ay caawiyaan waxay qofka dhibanaha waxay ka caawiyaan qarashka faldambiyeedka uu ka dhasho dhaawac ama dhimasho ayay bixiyaan dhaawaca alaabta kuma jiro dembiyaashaas waxaa waaye waxay ka mid yihiin dil dagaal xadgudubka loo geysto caruurka filimaada galmada caruurka xadgudubka galmoodka burcadnimo heebeysan afduubka dagaalka qoyska ama dad wada degan dhex mara xadgudubka dadka da'da ah qashqashaada dabqabadsiin dembiyada baabuurta iyo wadista qamriga guri iyo xafiiska jabasho iyo argagixiso marka dembiyaashaas waaye dembiyaasha ay guddigan qofka dhibanaha haddii dembiyaashaas laga galo ay ka caawimaad ka raadsan karaan oo qarashka ah laakiinse shuruud ku xiran waa in faldambiyeedka ka dhacay Minnesota ama wadan dibadda ah oo aanan lahayn barnaamijka oo magdhowga dhibanayaasha waa in faldambiyeedka lasoo gaarsiiyaa booliiska 30 cisho gudahood waa in qaan sheegashada lasoo gudbiyo 3 sano gudahood marka uu dhaco faldambiyeedka so marka dembiga lagaa galo 3 sano gudahood waa inaad applicationka buuxisaa haddii aad rabtid caawimaadaaseeto haddii 3 sano ee dhaafto goortii dembiga lagaa galay uma qalantid in aad caawimaadan heshid waa inuu dhibanaha la shaqeeyaa booliiska iyo xeer ilaalinta magaalada iyo degmada sida loo maxkamadeeyo qofka eedeysanaha waan in aanu dhibanuhu geysan wax faldambiyeed ah ama aysan qayb ka ahayn dembigii dhacay waa in la isticmaalaa ugu horeyn dhammaan goobaha kale oo laga heli karo bixinta qarashka sida insurance-ka caafimaadka ama insurance-ka shaqada marka hore waa inaad isticmaashaa kuwaas
inta aada caawimaad ka raadsanin guddigaaneeto. Next slide please. magdhowga oona loo yaqaano restitution waxaad soo codsan kara qofka dhibanaha oo dambiga laga galo. codsigaas waa inuu yahay lacagta oo horey jeebka uga bixisay. So marka haddii tusaale haddii taleefon laga xaday qof dambi lagu soo qaaday inuu taleefon kaa xaday, waa inaad haddii markaas taleefon cusub noqotay inaad gadatay receiptkaasaa haysataa oo aad tusi kartid taleefon cusub inaad gadatay. marka waxaa rabtaa lacagtaas in lagu soo celiyo. markaas aad codsigaasaa soo buuxinaysaa, waxaad la soo raacsiinaysaa qarashka kaa baxay ama receiptkii ama qiimeyntii wixii lagaa xaday ama wixii kaa baxay. aad cadayntaasaa soo raacsiinaysaa codsigaas. markaas qareenka ama qaaliga ama xaakimka judgeka ayaa amri doona qofkii dambiga kaa galay in uu lacagtaas magdhowgaas lagu soo celiyo. qofka eedeysanaha waxa uu haystaa 30 maalmood oo uu ka codsan karo dhageysi maxkamadeed haddii uu ka doodayo ama haddii uu kasoo horjeedo lacagtaas lagu xukumay. 30 beriyo haystaa uu codsi soo sameyn karo. jadwalka haddii uu qofkaas ogolaado in lacagtaas uu bixiyo, jadwalka oo bixinta lacagta waxaa gooya maxkamadda degmada. qofka eedeysanaha wuxuu lacagta u diraa degmadu u diraa Hennepin County, then Hennepin County qofka dhibanaha jeegka usoo dirta. marka qofka eedeysanaha adiga ma kuu soo diraayo lacagta maadaama adresskaaga ama ciwaankaaga ma siinayno. qofka Hennepin County lacagta ka bixina, Hennepin County lacagta markaas kuu soo diraysa. haddii uu qofka eedeysanaha xabsiga ku xiran yahay sida xabsiga weyn oo prison loo yaqaano, waxaa lacagtaas laga jaraa musharaxa laga siiyo shaqada uu ka qabto xabsiga. marka inta laga jarayo waa 10% oo lacagta uu xabsiga ka shaqeeyo aa laga jaraa sidii lacagtaas qofkii dhibanaha ahaa magdhowgiisii loo bixiyo. Next slide please. xaquuqda qofka dhibanaha waxaa kaloo ku jira in uu warbixin ka bixiyo raadka uu dambiga ku reebay qofka dhibanaha. marka oo waxaa loo yaqaanaa victim impact statement. marka maalinta ugu dambeysa oo maxkamadda oo qofka la ganaaxayo, qofkii dhibanaha ahaa wuxuu xaq u leeyahay in uu faahfaahin ka bixiyo saameynta ay ku reebtay dambigan qofka dhibanaha iyo bulshada. sida uu dhigayo sharciga Minnesota, cid kasta oo dambi kasoo gaartay fal dambiyeed ha ahaato si toos ah ama qof bulshada ka tirsan, xaq wuxuu u leeyahay inuu macluumaad u soo gudbiyo maxkamadda oo ra'yi ku darsado. qofka u doodaha qofka dhibanaha wuxuu ka caawin karaa sidii oo aad u qori lahayd ama usoo bandhigi lahayd warbixintaas. warbixintaas waxay noqon kartaa mid qoraal ah ama mid afka laga sheego. qof qaaliga xaakimka wuxuu tixgelinayaa warbixintaas uu qofka dhibanaha soo jeediyey mid saameyn ku yeelan karta damaanada shuruudaha sii deynta, kor kala socoshada ama xukunka. Next slide. xaquuqda qofka dhibanaha way sii socotaa markii oo qofka la xukumo ka bacdi. wuxuu xaq u leeyahay xukunka markuu dhaco ka bacdi in lagu wargeliyo haddii dhibanuhu
racfaan ka qaato xukunka waxaa loo yaqaanaa appeal hadduu ka qaato xukunkii in lagula socodsiiyo in aad ka qayb qaadato dhammaan dhagaysiga maxkamadda iyo go-aanka ka dambeysa markii uu qaato appealkaas uu qaato in lagula socodsiiyo xaq aad u leedahay in aad codsan karto in lagu wargeliyo marka uu qofka xabsiga laga soo daayo qofka eedeysanaha markii xabsiga laga soo daayo ama haddii uu xabsiga ka baxsado waxaad xaq u leedahay inaad codsan karto in lagula socodsiiyo haddii uu codsado in dadweynaha laga qariyo diiwaanka faldambiyeedka so marka haddii uu qofka dembigii codsado in laga tirtiro recordkiisa laga tirtiro xaqa u leedahay in lagu soo sheego inuu codsigaas uu eedeysanihii soo sameeyey xaq waxaa u leedahay in aad codsatid eedeysanaha in loo aqoonsado inuu madaxa ka jiran yahay iyada oo ku xiran natiijada codsigaas in aad codsan karto in lagu wargeliyo haddii laga sii daayo goobta lagu hayo ee cudurrada dimiirka next slide haddii aad rabtaan inaad nala soo xiriirtaan haddii wax su-aalo ah maanta qabtaan waad ciwaankeenna waa kaas waa nala soo xiriiri kartaan haddii aad wax su-aalo qabtaan website-keennana waa taas shaashada macluumaadka dadweynaha oo aad geli kartaan haddii aad wax su-aalo ah qabtaan emailkeena iyo teleefonkeenana wuu ku yaalaa haddii wax faahfaahin kale a u baahan tihiin ama haddii aad wax su-aalo aad qabtaan next slide ciwaanadeena waa kaasaa ama emailkeena aadna lagala soo xiriiri kartaan wax oo ku saabsan haddii aad rabtaan in nili soo bandhigo presentation yaal kale haddaa rabtaan in nili soo bandhigo oo waxyaalo kaloo sharciga ku saabsan waxaad la soo xiriiri kartaan Sandra Villardo waxay xil saaran tahay community engagement-ka marka haddii oo wax bandhig kale a u baahan tihiin oo meelo kale oo sharciga ku saabsan in nili faahfaahiyo ayada aad kala soo xiriiri kartaan haddii aniga ama warsame rabtaanna inaad la soo xiriirtaan emailkeenana halkaas uu soo dejisan yahay aadaa u mahadsantihiin inaad nagala soo qayb gasheen aad na dhagaysateen waa mahadsantihiin mahadsanid